tahay arrimaha baarlamaanka iyo waliba xildhibaanada kala fadhiga ay ku yeesheen muqdisho oo ay ugu hadlayeen sharciga haweenka ama tacadiga dhanka jinsiga marka laga hadlayo guddoonka iyadoo sharcigu uusan ajandaha ku jirin kala fadhiga xildhibaanada haddana waxay noqotay in meesha xildhibaanadu ay keenaan maxaad is dhihi kartaa sharcigaasi maadaama lagu tilmaamay mid diinta islaamka ka baxsan uu yahay oo labadii guddoon oo waliba guddoonkii koowaad mursal iyo muudey bay ka hadleen adigoo ka guddoomiye urur haween ahaan maadaama haweenka Soomaaliyeed hadda aad u hadlayso maxaa marka horeba kuu muuqday sharcigaas markii la soo bandhigay aniga sharciga waxa ii muuqday sharciga dadku u ololaynay u taaganaan kamid ahaa dabcan anagu waxaan nahay islaam wixii sharciga islaamka uusan qabin in laga bixiyo dhammaan isku raacsannahay laakiin in la is hortaago iskuma raacsanin waxaa la yaab leh marka iyadoo ajandaha uu ku jirin kow ajandaha maxaa loo keenay ajandaha markii sharcigan wasaarada keentay xaq waxaa loo lahaa wasiiradda in la waco akhriska waad la geliyo mid labaad la geliyo mid saddexaad la geliyo wasiiradda ay ka jawaabto iyadoo taagan sharcigan maalin dhaweyta baarlamaanka waxaa ka dhacay dood oo la leeyahay sharcigan maaha sharciga wasaaraddu keentay guddiga xaquuqul insaanka ku doodayay marka baarlamaanku ma laba qaybood aha midda kalena golihii wasiirada oo soo baasgareeyey miyaa gaala ahaa baarlamaanka muslina iyo ra-iisul wasaarihii dalka ayaa baasgareeyeen midda kalena dimuqraadiyadda laga hadlay dhammaan inta baarlamaanka ku jirta caruurahooda dibadday wada jiraan dhulka gaaladay wada joogaan aniga kula hadlaa ilmeyga waxay joogaan dhul gaalo marka haddaan dhaho gaaladina waa diidaa caruurtayduna way ku noolaanayaan taas soomaali ma noqonayso guddoonka baarlamaanka waxaan ka rabnaa iyagoon siyaasadaynin buuq lagu furin sharcigan in culummada soomaaliyeedna la keeno haweenka soomaaliyeed la keeno wasiiradda lasoo fadhiisiyo kadibna ay ka jawaabaan laakiin in la dhaho waa ka xishoonaynaa afkeenna ma qaban karo marka kufsiga afkooda waa qaban karaa sharcigan afkooda ma qaban karo in laga hadlo sharcigan waa sharcigii kufsigan lagu difaaci lahaa haddii si dadban iyo si qaldan loo soo geliyey kanba asalka horeba marka hore xagee laga keena kan maxaa loogu dhaqmayaa kitaabka qur-aanka maa lagu dhaqmo kan baarlamaanka laga saaro kitaabka qur-aankana ha la dhigo dilkii lagu fuliyey kuwa baydhabo iyo caasheer kuwii dilay ayaan ka rabnaa laamaha amniga dadka xamdi loo soo qabtay in lagu fuliyo sharcigaana waxaan rabnaa wasiiradduna male anaguna malen haween soomaaliyeeda iskale waa mustaqbal la rabo sida heshiis bulshoo kale uu kan yahay inay qodobo noogu yaalaan lagu ciqaabo qofti dembi iyo tacadi gabdhaha u geysta kaasaa la rabaa wixii xuna laga bixiyo laga doodo kole sharciga guddoonka golaha shacabka aqriyay adigu waxaa tiri waa la kala bedela sharciga maxaa cadeen u ah maadaama wasiiradda baarlamaanka aysan ka hor hadlina dhayn sharciga anaga aan keenay ma aha midka saxda adigu maxaa ku cadeynaya in waxaan ku cadeynaya anigu dadka danaynayaan ka mid ahay xaqaanan u leeyahay meesha magaalada gabdhaha lagu kufsanayo wiilasha guddoomiyaha haweenkooda waa aniga wasiirku waajibkeeda gudatay baarlamaanka geysay shaqadeeda maaha haddii la tuuro iyo haddaan la tuuron waajibkii ay lahayd wasiir deeqa way gudatay wasaarad haweenaa iskale magaca gabdhaha soomaaliyeed iskale sharcigan meesha kumuu jirine ajandihii shalay khayraadka laga hadlaayo waxbarashaa laga hadlaayo caafimaadka maa laga hadlo taabuugga iyo calaqa iyo qamriga shuruucdii lagu ilaalin lahaa iyo sharciga dadkana qarxinaayo laamaha amniga iyo maaragtay xag jirka lagu xukumi lahaa hoostaa la dhigay khayraadka iyo kulligoodna halkaana looga hadlaya maxaa diida macnaha dumarka soomaaliyeed maxaa waxay dumarka keenaan lugaa loogu dhagaya maa la soo fadhiisiyo ayada maa la soo fadhiisiyo laakiin haddii uu yidhaahdo guddoomiyaha baarlamaanka waa ka xishoona afkayga ma qaban karo hadda asagay waxay ku noqonay su-aal ku laabanayso maadaama asaga u hayey muxuu intuu u yeero official u jeexjeexi waaye markuu akrinayase muxuu afkiisa ereyada qaarkood usoo mariyey ilaa waaba xishoonay moogta kaliya in waxa ay yihiin waxa loo soo banay kaliya waxa ay yihiin sharcigaasi in dadka la tuso loo aqriyo loo cadeeyo hadda waxa laga yaabaa hadalna si u yirina si u qaaday haddii la google gareeyo buugan wasaaraddu soo gudbisay ee af Soomaaliga iyo correctiga aan lahayn qoftii qortay jinni ninka keenaa bixiya liire ma la keeno oo la soo fadhiisay ayada labo aaway guddiga baarlamaanka xaquuqul insaanka shaqulka kulaha ma yaxay uga hadli waayeen waa maxay sababta marka uu u leeyahay guddoomiyaha baarlamaanka waxaan u dhiibnay guddiga joogtada waxba kama gelin guddiga xaquuqul insaanka ayaa shaqul ku leh sharciga SOB inay ayagu ka hadlaan gudbiyaan wasiiradda u keenaan soo fadhiisiyaan deeqama dalkay ka maqan tahay waa maya adigaa qoray miyahaa muxuu yahay ka jawaab kan waa qalad culimmadan intaa la soo fadhiisinayaa
haweenkaa la keenayaa dhallinyaradiyaa la keenayaa cid walbo wixii caqabada waa laga bixinaya culummada soomaaliyeed maxaa diiday inay kiiska xamdi ka hadlaan waa maxay sababta kufsiga iyo buuggan looga hadlaya muxuu yakan waa heshiis waa wax la tuuri karo laakiin waa lagu heshiiyey waa kan dalka hadda lagu dhaqaayo marka kufsigu sharciyuu leeyahay diinta islaamka waxa ay qabtaa lagu fuliyo waa tahay waxaa dhahday xildhibaanada ama wasiirada looma ogolaan fursad lama siin looma yeerin waxaa meeshaas ka cadaan karta gaab xildhibaanada iyo guddoonka golaha shacabka inay ka dhexeeyaan qudhiinu idinku naftirkiina adu naftirkaa guddoomiye urur haween baa tahay wasaaradda dabcan sidaan jeclahay wada shaqayn iyo deeqa wada kala dhexaysa inta ayadu naftirkeeda sharcigaas ka dawareegaysa ma jirta idinku ka haween ahaan waraysi ama xog waraysi arrimahaas aad kala hadlaysan oo la yeelatay maxaa isbedelood soo kordhisay waxba lama miiska hoostiisa sharci la rabo in lagu hayo 2018 ayaa sharcigan la keenay intaasaa la isdaba marsiinayay sharcigan wuu siyaasadaysan yahay laakiin yaan qiil loo raadinin culummada soomaaliyeed ee ilaahay ka baqanaya waa in ay soo fargeliyaan la soo keeno labada buug midna baarlamaanka guddoonku keenay kii hore wasaaraddu keentay inta laysoo agdhigo wixii qaldan ha laga saaro hana loo sheego ha la yidhaahdo anigu markii golihii wasiirada culummada soomaaliyeed ayaa baarlamaanka before intaan golaha wasiirada la geyn loo dhiibay wuxuu noo sheegay sheekh culummada ka mid ah sheekh cali wajiis in loo dhiibay asaga muddo bila uu soo akrinayay intaan golaha wasiirada la geynin haddana wuxuu ka mid yahay culummada soomaaliyeed waa in asaga uu caddeeyo in buuggan uu akhriyey uu bixiyey inuu yahay asaga iyo inaanu ahayn marka maadaama bari arrintan ay tahay arrin meelo badan kasoo fatahayso webi butaacaya yaan laga dhigin anu waxaan qabaa sharciga hala waafajiyo culummada soomaaliyeed waxaan naha muslin wixii diinteenna wax u dhimaayo annagaan ogolaanaynin marnaba ma yeelayno laakiin waxaan rabnaa culummada soomaaliyeed inaan weydiino 30% diinta islaamka meeshay uga qoran tahay waxaan rabnaa culummada in naloo weydiiyo 4.5 diinteenna meeshay uga qoran tahay waxaan rabnaa culummada inaan weydiino hooyada kowda habeenimo jaadka iyo shidaalka gadaysa ee wadada taagan ee agoonta korinayso diinta u ogolaata inay dabaysha taagnaato waxaan rabnaa culummada soomaaliyeed inaan weydiino sababta ay u leeyihiin gabadha iyo wiilka soomaaliyeed haddaan u wada simannahay sharcigan qof walbaa lagu difaacayaa ha naga dhaadhiciyaan waa culummadeennii sabcan wadaacan aan leenahay wixii diinta ka baxsan markay noo sheegaan qodobkan waa ku jiraa kan waa na anfacaya kan waa qalad annagaa u sheegayna waxaan leenahay wasiir waxaan ma aha wixii saxda ahaa mana aha kuwa dalkeenna iyo diinteenna ay ku dhaqmi karaan laakiin waxaan rabaa baarlamaanka iyo golaha wasiirada oo soo gudbiyey iyo guddoonka inta ugu sarrayso dhammaantood caruuradooda waxay joogaan dhulka gaalada marka dimuqraadiyadda dadka soo guuriyey kama dhamin waa beesha caalamka waa kuwa in badan aan ku tiirsanna maalin walbaba aan wax ka sugayno ilaahay subxaana watacaala kitaabuna siiyey musamilka qur-aanka aan ku dhaqanno waxa gaalaa keenta dii la yidhahdana xagga hala dhigo anu taasaan qabaa laakiin sharciga hala baasgareeyo sharciga ka hor baasgareyntiis waxaan rabaa inaad iiga jawaabto maadaama sharcigan waa la siyaasadeeyey aad dhahday wasiira deeqa oo ah wasiirka haweenka iyo adigoo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir ma dhacday inaad kulan yeelateen ood ka hadasheen waxyaabaha quseeya sharcigan weli ma dhacda inaad ka fadhiisateen 100 maran ka fadhiisanay haween ahaan aad ugu sheekaysteen meeqa sano 2008 meeqa ka soo wareegtay annagu waan ka hadalnay sharcigan waxaan diinta islaamka waafaqsanayn golihii wasiirada la keenay golihii wasiirada anu waxaan rabaa in la cadeeyo golihii wasiirada oo kiyaalii maaskar loo xiray aan ka imaano wasiirada aniga su'aasha midna deeqa iskale midna ana iskale anigu waxaan ahay dadka raba inay ku difaacaan dumarka la kufsanayo oo anigu aan mas'uulka ka ahay waxaan rabaa wax shariicada islaamku ay qabto oo waaqaca in loo keeno oo nalagu dhaqo laakiin ma ogolaanayno sharciga heshiiska bulshadana waxba kuma liidiin oo dumar Soomaaliyeed atiin durduriya oo yaanyada iyo basbaaskana iibiya marka ay timaado kuraasta aan doonana diintaana lagu dabaqaya annaga dhaqanka waxba nooma ogolo diintiyaana lagu riixaya dhaqaalahana lagu riixaya haween Soomaaliyeed anahay culummada Soomaaliyeed hadda ka horan dibeyt ka codsanay hana hor yimaadaan hana qanciyaan hana nagu qanciyaan wixii shariicada islaamka ay qabto kan waa wax hadda la abuuri karo sharci hore waa jiray sharci wuu jiray